بسم الله الرحمن الرحيم إن أدنى كأجمع حنقية حسن وقت قعدنا سي ورئيسي جاني عن ركولي لنا وأنا تكون محدثنتها وجورين توحن تعلان لا حسن بالتاريخ نولد كاجا سي في جاجا سي كوبن إن أدنى شيكت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تاريخ ده waxa ay ka bilaabantay mii baan ku dhashay dhamada banka xarshimaad mid kamid ah ayaan ku dhashay abhay magaalada deganaa qiyaastii guga ayaa la bixi jiray oo miyiga la tagi jiray dadka magaalada degani markan 5-6 sanadood meelaha jiray baa lagu daray malcaamad ina Sheekh Ibrahim Baraam malcaamadii loo oran jiray laba malcaamadoodo caan ah oo Carabi loo oran jiray ayaa jiray oo Hargeysa ay kamid ahayd 750 ayaa iskuulka la qoray qoliyaha malcaamadda ugu tagay waxa ka garanaysaan Roobe iyo Isticaare iyo waxa ka garanaysaan Maxamed Xaaji Maxamuud Umar Xaashi waxa ka garanaysaan markii riis iskuulka la yiraahdo ayaa la qoray dabeetay iskuulkan la yiraahdo macallin Daawud imka la yiraahdo soo wareegay Axmed Gurey ayaan galay Sheekh Iskandarigi ayaan galay waxaan ka mid noqday markaas 10 inoo scholarship course ay dawladda Ingiriisku siisay 10kii tacliinta ugu fiicnaa 2 sanadood soo gaaray sanadkeedii iyo sanadkii naga horeeyay labadaas sanadood kala haystay 60kii iyo 69kii 67kii ayaan England dabeetay 10kaas ayaan ku tagnay halkaas ayaan dabeetay jaamacadda London ka galay dabeetay anoo jaamacadda ku jiraan BBC da part time waqtiga ay mid xanuunsada ama fasaxay gali jiray jaamacadda markii aan dhameeyay baan dabeetay shaqo rasmi ah ka helay BBC da barnaamijyada Ingiriisiga aan badnaa Ingiriisiga aan Soomaaliga u badnaa Ingiriisiga ka qayb gali jiray sida buugaagta review-ga laga hadlayo kale waka dabeetana SMT وهاجاج goormaad siyaasadda soo gashay siyaasadda waxaan bilaabay siyaasad xiisaha inaan xiiseeyo anigoo jaamacadda ku jira siyaasadda Ingiriiska marka waxa aanu u doodi jirnay oo hadli jiray xuquuqda dadka madow Soomaalidu way dhif bay ahayd lama aqoon Soomaalida waaga hore Ingiriiska iyo wadamada Yurub iyo hadda tira Soomaaliyan ka yimid dadku oran jiray Soomaaliya wax xaqii ma aqoon ba laakiin nimadan iyo dagaaladan dambe iyo dhibaatooyinkan dambe lagu bartay Soomaalida waaga Soomaalida lama aqoon teel baan ahaayeen dad aad ugu tiro yar ahaayeen siimaanadii hore nimankii la oran jiray odayaashii ma way ama sii dhintay dhimanayeen ama way baxeen ama wadankii ka noqdeen intayadii dabeetay ardayda ahaydna timina waanu midba magaala lagu tuurayo waanu teelkaas aan ku ahayn marka arinta aanu xiisayn jiray waxa ay xuquuqda dadka madowga ayaan xiisayn jiray halgan kan ka qayb galay anagoo jaamacadda ku jira waxa kamid ah halgankii South Africa Nelson Mandela markii uu xidhnaa siideyntiisii ayaa kamid ahayd mudaharaado waaweyn baan abaabuli jiray Trafalgar Square waad garanaysaa ayaanu boqolaal kun oo Ingiriis aanu ka qayb gali jiray ragga mudaharaadada ka qayb gali jiray aad garanaysaa waxa kamid ah Jack Straw ayaa raggiina hogaamin jiray kamid ahaa markaa madaxda ahaa ururka ardayda oo wasiirkii khaarijiga noqday Ingiriiska wasiirkii dakhliga ma noqday ragad garanaysa kale waxa kamid ahaa Peter Hay oo isna wasiir ka noqday dawladii Tony Blair ragaas maalin baan Peter Hay ka wada hadalay ka wada qodbadayn Trafalgar Square warku galaysanto wallahi xuquuqda dadka madow baan u doodaynay Nelson Mandela ka soo waxaan u doodi jiray gabar caan noqotay oo Angela Davis loo oran jiray bergitimaad la bixi jiray timaweyn caan ku ahaan jirtay oo professoradka ahayd jaamacadaha ugu caansan Mareykanka California Berkeley oo ano waxaysanay anagu xaqdareen lagu xiray kaambeeykeeda anagu jaamacadda London gudoomiyaha ka ahaa oo arintaas aan halka Trafalgar Square ka hadlay waqtigaas aan xiiseeyay siyaasadda xisbiga shaqaalaha Labour Party ayaan kamid ahaa meelaha ay doorteen waxa kamid ahaa inaan kamid noqdo barisaabada governorska iskuulada deegaankii aan deganaa marka London oo ahaa St John's Wood in iskuuladeeda aan barisaabada kamid noqdo aan ku shaqeeyay muddo kooban dabeetana waxa soo baxay dareenkii ahaa in SNM la sameeyo urur ka horeeyay SNM oo oran jiray Somali Welfare Organization ayaan lahayn qolooyinkeedii in la
oon mudaaharadada ku samayn jiray safaaraddii siyaad barre ee London ku taalay markaan muddo wadnay sanad iyo dheeraad mudaaharadada ururkaas magaciisa ku wadnay Cabdiraxmaan Cabdiqaadir oo kale iyo Axmed Suufi oo kale iyo ay guddigii maamulaya ka mid ahaayeen aniguna aan la hogaamin jiray ayaa SNM dabeetaan ku dhawaaqnay markii SNM ku dhawaaqnay ayaa dabeeto Ethiopia amnimi dabeeto inta kale waa caarsha kale waa haystaan inta kale halkaasaad ka sii bilowd waxaa jira 3 xisbi qaran oo ka jira Somaliland kulmiye oo imika hadda talada haya ucid iyo udub oo markii hore hayn jira 3 xisbi qaran ee jira mid ka taageeri jirtay 3 xisbi qaran midna runta hadda doonayso maan taageeri jirin aan ku kala saaray taageero iyo kamid ahaansho weeyaan kaagaysantay midna kama mid ahayn taageero rasmiyana midna ma taageeri jirin ucid waan yar xiisan jiray sababo ii gaar aniga waan yar xiisan jiray Faisal Ali iskaas baan ahaan jiray sanad baa iskuulka wada qoray Chris iskaas baan ahay markiiba waa la bedelo iskuulka u tagay oo sidaas aan isu naqaano isku kacaan baan ahay waana isu dhawno waa ay aftuweeyaan taakasako barnaamijkooda meelo badan oo aan xiisan jiray way jirtay laakiin doorashadii ugu dambeysay taladayda waxa kamid ahayd kulmiye inuu doorashada helo waxay u wanaagsantahay midnimada qaran ee Somaliland u wanaagsantahay mowqifkaasaan qaatay oo aan ku hadlay oo aan ku taliyay laakiin maan noqonin kaalin firfircoon ka galay campaign-kooda iyo doorashadooda markii ugu dambeysay laakiin waxa taageerisay kulmiye waan ku taliyay in la soo saaro kulmiye waan ku taliyay laakiin wax taageero wax hawlo kale oo qabtay ma jirto xasan wad ku talisay waanu soo baxay xisbi al-xaakim buu noqday waxaad ku talisay inuu isagu soo baxo oo ka mid noqdo madaxtinimada uu hogaamiyo wadanka isagoo mucaarada maxaafad buu noqday waa maxay sababtaad markaa uga baydheed isagii uu raacdid maxaad urur kale uga furtay waa sababo badan awgood anigoo kaliya maaha raggii gudoomiye ku-xigeenada ka mid ahaa kulmiye ayaa maanta dibadda ka jooga oo uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Cabdiqaadir waxa weeyaan had iyo jeer in badan bay dhacdaa had iyo jeer aan odhanay in badan bay dhacdaa xisbi mucaarida oo xukunka qabta oo sidii la moodayay noqon waaya kulmiye ugu horeeyo adduunka oo dhan bay ka dhacdaa in badan bay dhacdaa ama Afrika ama wadamada horumaray xitaa wadamada horumaray waad ka warhaysaa dhaliilo badan baa soo baxa dhaliilo badan ayaa soo baxa badankooda Afrikana way kaba sii xaq jirtaayo sababaha uu xisbi kasta uu dhaliilo u yeelanayo waxa kamid ah mid ay ka wada sameeyeen xisbiga ugu wanaagsan ee ka ugu xumi mid ay wadaagaan ayaa jirta Afrika oo ah hawsha taala Afrika ee ah in wax laga qabto horumarka hawsha horumareed ay tahay in wax laga qabto xagga dhaqaalaha xagga tacliinta xagga caafimaadka xagga kaabayaasha nolosha oo dhan ayaa heer aad u hooseeya taagan Soomaaliya oo ay adag tahay dawladnimada ugu fiican inay wax muddo kooban ay wax ka qabato wax ku bedesho aad iyo aad bay u adagtay marka waa in daanweyne dawlad kasta oo Afrikaana horta in ilaa heer niyad jab ay la kulanto waa in daanweyne su'aasha kale waxa weeye ilaa heerkeeba dabeeta laga niyad jabaya weeyaan ayuu ku kala duwanaanayaan sababtoo ah hawsha ballaaran oo qof bilowaan aanu muddo yar oo kooban aanu horumar muuqda ka wada qaban karin arinta waxaan ka hadli jiroon oran jiray oon ku qori jiray SNM intaana Ethiopia iman jiridan soo saari jiroon anigu tifatira ka ahaa oo la oran jiray Soomaaliya Uncensored oo Ingiriiska soo bixi jirtay qodobada kaga hadli jiray kamid ahayd marka aynu dalka hadii halkan aynu ku guuleysano oo dalka horeyna hadii la yiraahdo lagu talagalo in dawladda aynu dhisnaa aanay noqon doonin mid hanan karta ummadda oo dhan taageeradeeda sababadan tan ku sheegaya kamid tahay heerka horumarineed ee laga rabo dawladda Afrikaanka ahayd ayaa aad iyo aad u culus oo ka culus qof bilowaan wuxuu qaban karo marka cid kasta oo meesha fuulta ilaa heer waa laga niyad jabaya taasi waa mid laakiin kulmiye
isaga waxa laga niyad jabay isaga oo gaarinba bishii la oran jiray shahrul casrka ee ay ahayd taageer buuxda inay sii wataan ay ahayd ayaa laga niyad jabay sabab badan awgood oo wixii la filayay inay bilaabaan inay wax ka qabtaan ayaana xageediiba u leexan waxyaabo badan baa seegay oon anigu ku talan jiray xukuumadda kulmiye oo aynu mid u gali karnaa haddii loo baahdo waagaag xasan waxa soo maray waddankan 4 dowladood allah u naxariistee cabdiraxmaan axmed cali maxamed xaaji ibraan cigaal allah u naxariistee daahir rayaale iyo imika axmed maxamed siiraan iyo madaxweyne hadda xisbigan waxaad u samaysayna dabcan waa inaad kursiga horta kortaa hogaamiye ka noqotaa dalka oo dabcan waa sidaasi maxaad u malaynaysaa haddii aad heshid wax aanay qaban intaa kaa horaysay oo kuu muuqdood qaban kartaad ummadda u sheegaysa wax badan ayaa ii muuqdo oo la qaban karo oo aanay kuwii iga horeeyey qaban marka ugu horeysa waxa aan imikuun maahe aan hore ugu taliyey wakhtigii maxamed xaaji ibraan cigaal ku taliyey war Soomaaliland marxaladay marayso ee ah wadan curdina oo da'yar oo aan ixtiraaf haysan caalami oo diblomaasi macnaheedu ay tahay markaa taageeradii iyo gargaarkii adduun weynaha ma helayo macnaheedu ay tahay in la yiraaho xisbiyo aynu samaysano party politics aynu ummadda u noqono kooxii kubadda oo kale aynu kubadda arrimaheeda ku ciyaaro oo ummaddu ayna kala taageereen oo ayna kala doorteen waqtigeedii lama gaarin baan anigu ku tali waqtigan maxamed xaaji ibraan waqtigan oo kale ummadani waxay u baahan tahay dalku u baahan yahay waxa weeyaan waxa la yiraahdo dawlad qaran waa dawlad xisbiyada oo dhan ka kooban iyo ururada oo dhan ka kooban muxaafid iyo mucaarid oo dhan ka kooban oo dawladani itraaf la'aantani waxay la mid tahay gaarigii ay ummaddu saarayd oo dheeri inaga galay adag markaasoo kale gaariga waa laga dagaa waa la wada riixaa qaybina hadday qayb riixdo qaybta kalena ay dhinaca kale ka hortimaado dhinaca kale soo riixdo itraaf mucaarad baan nahay ummadda danteedu way ku lumaysaa waa in ummaddu dhinac loo wada jeediyaayo gaarigi dhinac wada riixdaa inay qaarna riixaan qaarna dhinaca kale ka soo riixaan oo dhahaan mucaaridayna ma aha waqtigeedii lama joogo waxa marxaladan aynu joogno kale waxa lagu sifeeyaa marxalad xaqiiqada marka loogu tago meesheeda u dhiganta dagaal haysta ummadda shisheeye ku soo duulay oo la dagaalamay oo dagaal culus ku haya ayay u dhigantaa xaaladda in haysata marka arrintu caynkaa tahay ummadda dhinac baa loo wada jeediya waa la mideeyaa waxa la sameeyaa dawlad qaran mitaal baan ku siinaya imika taagan waddanka Greega la yiraahdo kamida wadamada hore u maray waddanka Talyaaniga oo kamida wadamada hore u maray wadamada waxay kamid yihiin labadaasiba wadamada Yurub adduunka marka la eego wadamada ugu hodansan waxoogaa deyna lagu yeesho iska bixin kari waayeen oo ku adkaaday labadii wadanba waxa la yiri waar inaga dhiga siyaasadan xisbiyada dawlad qaran noo sameeyo sidaynu ummadda uga saari karaa dhibaatadan waxa weeyaan dawlad qaran marka ay arintu adkaato waxa la sameeyaa dawlad qaran oo muxaafid iyo mucaarid baa la isu keenaa talada la mideeya marka waa sidii dagaalkii dunida labaad ee kale waa sidii dagaalkii dunida koobaad oo kale dagaalkii dunida labaad xisbigii conservative-ka muxaafidka ahaan jiray iyo xisbigii shaqaalaha Labour-ku dawladdii bay isugu tageen Winston Churchill baa madax ka noqday dawladdii kii xisbigii mucaaradka ahaa Labour-ku wuxuu noqday ra'iisul wasaare ku xigeen ayuu u noqday dhinac bay wada jeedeen intii dagaalku socdo dhan way wada socdeen markii dagaalkii Ilaahay ku guuleeyay ay yiraahdeen daba dhibaatadii ummadda ka saaray imika kubadii noo kala saara aynu faakahaysanaynaay faakahaysi weeyaan aynu kubad ku ciyaar masiirkii ummadda xisbiga noqono taas ayaa ka waxyaabaha aanu ku bedelayno ee meesha ku jira ee loo baahay ummadani wuxuuna kaga bixi kartaa dhibaatadan dagaal oo kale u dhiganta in dhinac loo wada jeediyo muxaafid mucaarad kale isu keeno la wada riixo gaarigi dhiiriga laga saaro waad mahadsantahay in gudoomiye xisbi baad furtay kulli marka wax cusub qofku keenayana waa ama isaga ka fakara ama waa talo u qaato yaa kugula taliyay mise waa fakar adiga uun kaayay fikirka xisbi cusub in la sameeyo aniga wuu ii muuqday wuu ii caddaa laakiin kuma dhaqaaqin sababta oo ah waxa weeyaan sabab diiniya oo dhaqana ayaa jirta oo aanan anigu u bilaabin
nabigeena waxa laga soo wariyay calayhi salaatu wasalaam ninku haddii uu yidhaaho aniga xilka ii dhiiba oo madaxiga dhiga xagga minallaahida lagama taageero haddii qadarku u dhiibo ku soo baxo waa qasab xadiisku wuxuu odhanayaa ku fashilmaya anoo taa xeerinaya xadiisku wuxuu odhanayaa markaa ninka haddii loo gartoo la yidhaaho inta loo tago waar inakeen waanu kuu garannay na hogaami ama xisbi ahaan ahaato ama wadan ahaan ahaatee markaa xagga minallaahida taageero ayuu ka helayaa oo waa lagu asturayaa wuu ku guulaysanaya xilkii markaa lala soo doontay taasina waxa weeyaan arrin asaasi oo muhiima weeyaan sababta oo ah Afrika waxa qayrkeed ka reebay guuldarro siyaasiya qayrkeed ka reebay marka inaynu guuldarro kale ku bedelo oo aynu dariiqeedii u marro oo aynu guuldarraba ka bixi weyno anigu ummaddan waan uga turay aniguna waan isaga turay marka waxaan ku fakiray xasano hadduu ilaahay wax kuu qoray xil seegi maysidii طريقاس نبي كتري عليه الصلاة والسلام اللي يقول ليس كريه جوش اللي يقول بيكسنا يو حدي ولا يكون قريك كاسو بيكسو أدو وحبا قلت الرو لقاها كتونا تاسكو بيكاهي ترنت مركز وان ما أنا أقول فكر كوي مغضي لكن ما بيلعبين هوشن وحول يرسل ضغطي رمضان تيجود بيسيبا أنا مساج كصوب حي مركي يقول رئيس الله يرسل قاعدوا لي حسنوا وحنو دونينا إن هوشاس أنا كل فكرنا كعوام عرنو وادنا رجليسه dabeeto runta hadaa doonayso yara argagax bay ugu noqotay Afrikana oo dhinaca Ramadan u jeeday dabeeto waxaan ku yiri bahada Ramadan ayna dhaafto aan ka soo istikhaaroono dabeeto shuwaashi ayna dhaafto yara ibridar baa ka deeyay markii ay runtii tagtay waa yara bashbashleeyay marka runta ku sheego soo waxay tiraa raguura waxay ka sheekayaan jabkooda dumarkuna baraarahooda sababaad garan aakhirtaankii laakiin markii aan ka istikhaarooday wada tashi galay labadaas oo wada socdo kala dambeeya waan ka ogolaado qolooyin kalena way yimaadeen oo saddex group oo kala jaada ayaa inoo aan qaadi karo waan arrinta ku ixtiraamay dariiqeediina aan ku dadaalay inaan waraha deelayna midnimada iyo kulanka iyo wadajirka iyo horumarku badanaa wuxuu ku xidhan yahay ka bilowdaa qoyska markii fikradda lagu la yimid adiguna markii dambe aad ogolaatay qoyskaaga ma ka talagelisay oo martii arrintaas ayaan wadaan maxay kugu yidhaahdeen طبعا waxa weeyaan waa mid daruuri ah weeyaan saan ku sheegay istikhaaradaas aan ka bilaabay oo marka hore ilaahay baan tala weydiiyay oo istikhaarada macnaheedu waa caynka ilaahay oo arrinkaas ayaan ku tala jiraa ama la ilayimi haddii khayrka ku jirana igu gargaar oo igu deeqo ii sahan haddaan khayrka ku jirnaa oge iga leexiyo meeshii kale cidla ay dhigina meeshii kale khayrka ku jiro ii leex waa ducada istikhaarada salaada raacda waa sirta nolosha ay dhahaayo waxa weeyaan lagama tagi karo arrin kasta oo muhiim ah oo qabanayso ilan dadkeena waa inuu wax sheegnaayo in badan baa garanaysa laakiin in badan baa ayaguna aan garanayn Soomaad garan talaabo kasto muhiim ah xagga mushtariga xagga siyaasadda xagga nolosha qaybaheeda kale guurka dhinac kasta waa daruuri qofka muslimka inuu Soomaaliyeena wayna kan ilaahay ilaahay baan tala saarto qaabku ilaahay ii tala saarta ayaa caynkaasa waxa weeyaan markaad arrin muhiim ah doonayso inaad ku dhaqaaqdo adigu ma wada ogid khayrkeeda ku jira iyo dhibaatada ka iman karta aniga tala isaaro ilaahay baan tala saartay weeyaan Soomaalidu waxay ilaahay baan tala saartay laakiin qaabkeedii ma wada hayaan qaabkaas ilaahay loo tala saartay balka waran baan dhahaa in noloshaadu unsur maseegta lahayn oo aan la waayay targetkii aad doonaysay inaad abaartid waxa weeyaan salaada istikhaarada waxa ku xigta marka oo iyaduna raacda wada tashi xadiisku kamid yahay waxa weeyaan marka hore istikhaarada samee marka labaadna wada tashi samee waxa la tashanaysaa dadka ku kalsoontay waxa ka qoyskaaga ayaa ka waa daacadda ku ah waa yumad waa qoyska iyo dadkii saaxiibaday aad ku kalsoonayd marka intaaba waan sameeyay xagga in qoyska iyo saaxiibaday ayaga dhibaato kala maan kulmin arrintaas iyo barnaamijkaas marka horeba way duduucayeen waxay lahayn waa fadhiga ka kaco hawl galbay lahaayeen taasi way ilaahay u sahlay xasan bulshadu way qayb badanta dhalinyaro waayeel markaan dhalinyaro la wiilal iyo gabdhaba lagu jiraa iyo de haweenka kale iyo ragaba ee dadka waaweyn dabcan waxa doonaysiin in la idin codeeyo codkuna meel ama labu ku jira sida adduunkuba u badayo bulsho kasta qayb badan qaybtee idin targetka koowaada bartilmaameedka koowaada ee aad abaarasan si la idinku codeeyo marka ugu horeysa bulshada iyada qaybna ka tagmayno saas sheegtay
ahmiyad baad kala siin doontaa ama tan la yiraahdo priority ahmiyad inaad mudnaan kala siiso waa waajib waa daw oo strategy baa ku xidhan laakiin qaybna ka tagmayno waxaan u kala qaybinaynaa tayo iyo tiro tayadu waxay imanaysaa xagga talada waanu ciidan ku xidhmaynaa waxa weeyaan ciida taladii garanaysa ilaahay wuxuu yidhi haddaad wax garanayn weydii ahlu dhikr qof wax kasta garanaya ma jiro qofka haddii aad ka dareento inuu isleeyahay wax kasta waad garanaysaa ka baxso ka fogow wuu kullu goynaya soomaad garan nin sheekh oo caan ah ayaa waxa laga soo sheegay aqoontu waxa weeyaan waa quraanka iyo axaadiista iyo garan maayo qayb weyn bay aqoonta ka mid tahay oo waxa weeyaan fataaxi aad ku helayso wixii ka dhiman aad ku baranaysid marka xagga talada ayaanu abaarayna oo ah dadka waay aragga ee mutacaliinta ee waayeelka waanu urursanaynaa oo talaan uga baahnay taladii wadankan uu ku dhaqaaqi lahayd lagu badbaadin lahaa ee horumar uu ku beegsan lahaa ayaga waanu ka abaaraynaa xagga tirada oo foodkii imanaysa dhalinyarada waa waajib inaanu mudnaanta koobaad siino xagga foodka soo saarka iyo fulinta foodka waayo ayaga uu tirada badan bulshadii Soomaaliland oo kaliya ma aha wadamada soo koraya oo dhan majority-goodu in tiradooda badan waxa laga yaabaa inay 25 jir ka yaryihiin tirada badan oo waxa weeyaan cimri dheer badan baan jirino duruufaad jiro oo waad ka warhaysayeen inaku lama mid yihiin wadamada Japan iyo Yurub iyo Mareykan iyo wadamada 60 jirka iyo 90 jirka iyo inta ka weyn ay sii kordhayso ay badanayso baan hino duruufaad jirta marka had iyo jeer inaka populationadeena iyo dadweynaheena iyo bulshadeena waxa inta badan boqolkiiba inta badan waa dhalinyaro marka kuwaas waanu abaaraynaa waa kuwii loo shaqeynayay waa future-kii ummadda soo korayay waa raasamaalkii dalka iyo dadka markaas waanu hawlgelinaynaa barnaamij waanu ugu talagalaynaa hadday tahay shaqo abuurid hadday tahay tacliintooda hadday tahay caafimaadkooda hadday tahay food bixintooda waanu u abaaraynaa mudnaan waanu siinaynaa maxaad is leedahay xasan hadda dhalinyaradaasi qaybtaasi ma hayso eed leedahay annagu waanu gaarsiinna dhalinyaradaasi waxyaaba aanay hayn imika waxa ka mid ah waxyaabo badan baa ka mid ah talaan weydiinaynaa horta talada waan ka qayb galaynaa hadday tahay ururka gudihiisa ururkaygan waxyaabuhu kaga duwan yahay ururada kale waxa ka mid ah waa ururada dhifka ah ee shirweynihii uu qabsaday barnaamijkiisa siyaasiga ah iyo xeerarkiisa intuu dadka u qaybiyuu soo badiyey yidhi soo akhrista oo waqti siiyey ay ku soo akhriyaan oo yidhi maalintii dambe soo noqdo oo ka dooda waxaan ugu talagalay inay dhalinyaradu kaalin fiican ay ka qaadato oo doodii way ka qayb galeen waana ka doodeen waana ka dhiibteen golaha dhexe way ku jiraan departmentada aan hawlgelinayna way ku jiraan oo guddiga fulinta way ku jiraan oo department dhanbaan dhalinyarada taladii aan ka siinaynaa xagga guddiga fulinta golaha dhexe oo way ka qayb galayaan oo ayagii baa jooga oo Soomaali waxay tirahaa ninaan hadlin hooyadii qadisay ayagaanu goobtii go'aanka lagu gaariyayba keenay oo danihiina idinku ka hadla anaku riidin garanayna danihiina oo idin sheegmayna idinku keena taladii oo qaybtii cadkii ay lahaayeen oo talagaloona hawlgelinayna hadii la yiraahdo markay dawladnimada noqotana halkaas man ka wadi doonaayo saas maan hawlgelin doonaa hadday shaqo abuurtay hadday tacliintay hadday caafimaadtay intaba way naga qayb galayaan rag iyo dumarba waanu hawlgelinayna hadii la yiraahdo sidaan ururhaanba hawlgelinayna wata xasan furitaanka urur la furaa ma dhib yara siyaasadda markaynu ka nimaadno iyo hawlaha kale iyo fakarka waxyaabaha ugu waaweyn loo baahan yahay waa dhaqaale Somaliland baana la jooga ama Afrika aynu nahay waxa laga yaabaa dalka kale dunida saddexaad qaarkood inuu ninku wax lunsaday ama meel dhigtay laakiin xitaa halkankii wax dhigtay maaha wax la taaban karo xageed ka keentay xasan dhaqaalaha inta leege atu galasaan arinta dhaqaalaha horta dhaqaale buuran annaka ururkayagan iyo aniga shakhsi ahaan midna laguma tubarunta hada doonayso waan ku dadaalaynaa inaanu arinta wax ka qabanno oo dhaqaale keenno waan ku barnaamijkeedii waanu bilownay laakiin weli ma muuqdo oo inoo soo wada gaadhin laakiin wax waanu bilownay waxyaabahan kaga duwanay ururada kale waxa kamid ah ururkani maaha urur sida aynu soo sheegnay qof samaystay oo raggii sameeyay guddi baa sameeyay ururkan oo aasaasay talada ay la yimaadeen laakiin ayaga ku meel gaar ahaan ismagacaabay gudoomiye ku meel gaar ayuu ururkani lahaa markii shirweynaha la gaaray baa aniga la igu soo wareejiyay oo la ii gartay anigu ma oran igu soo wareejiyay waa la ila soo doontay marka
ururada kale badankooda haddaad u fiirsato ninkii bilaabay ayuunbaa shirweynuhuna u ansixiyey ninkii kumeelgaadhnimada u hayey ayuunbuu shirweynuhuna yidhi sii wad hayhaydii maaragtay sii hay loogu dhuftay loo qaaday halkan ururkayga wuxuu kaga duwan yahay raggii bilaabay ee gudoomiye kumeelgaadhka ahaa waxaa la yidhi waad ku mahadsantay halkan aad soo gaadhsiisay ninkaa kale aan u wareejinaynaa isagaaba ka mid ahaa raggii yidhi iga wareejiya oo ninkan ku wareejiya waxyaabahan kaga duwanay ururada kale ay ka mid tahay waxaan kaga duwannahay dimuqraadiyadda aan kuu sheegaya ee intan barnaamijka siyaasiga iyo stoorka qornay aanu qaybinay habeenaanu siinay laga soo dooday iyo maalintii dambe la yimi doodii laga dhigtay rag iyo dumar iyo dhallinyaraba laga dooday laga diibtay taasina ururada kale badankooda kamay dhicine qaarkood baaba gelin kariya wuxuuba shirkooda ku koobnaayo inta la qaybiyey barnaamijyada siyaasiga ama aan la qaybinba ee la sheegay in la yidhi waa kaa loo footeeyo la yidhi aan ansixinayna waxa weeyaan arrin cajiiban la yaabay taasina way jirtaa marka xagga dhaqaalaha annaku waxaanu ku xidhannahay dadka xubnaha ka mida ururka iyo taageerayaasha ayaa waxoogaa yarayna soo gaadhay uu ka yimaadaa marka waxaanu doonaynaa iminkana taa inaanu kordhinno gudaha waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxa urur ay xubnihiisu leeyihiin ay dadka taageeraa leeyihiin ay dhaqaalihiisana leeyihiin taladiisana leeyihiin haddii allayna marka uu saddexda xisbi qarana ugu dambeeya tartanka ugu dambeeya la gelaya waxa weeyaan kan golayaasha deegaanka oo markaa ciddii ku guulaysata xisbi qaran ay noqonayso dadkeennana waxaad moodaa inaanay oqoonba ama maaha dadkoo dhan in badan aanay garanaynba micnaha golo deegaan waa maxay bal noo sharaxasa golaha deegaanku waxa weeyaan dowladdii qaranka oo yarun oo heer gobola heer degaana heer degma ah weeyaan waxa loogu talagalay danaha deegaanka inay ka shaqayso waxay isku xidhaysaa dowladdii dhexe iyo dadweynihii shacabkii deegaankaasay isku xidhaysaa danahooda hoose ee lama huraanka ah ee heer degmo ama heer gobol lagu dhammayn karo in ay ka furtaan dowladda hoose oo ay u fuliyaan dadka deegaankaa ku nool hadday biyaha tahay hadday caafimaadka tahay qashin ururinta hadday tahay ilaa heer caafimaadka yaryar hadday tahay oo ay waa dowladdii dadkii loo soo dhoweeyey waayo dowladda dhexe madaxweynaha qof kasta madaxweyne ma arki karo oo aroortii kuma kalihi karo oo dee dadku way fara badan yihiin waa la farabatay marka waxa weeyaan waxaan la yidhaha farinjiga grass root levelkii waxa weeyaan oo dadkiiba xukunkii loo soo dhaweynaya waxa la doonaya dadkii inay dareemaan inay wixii maamulkoodii wax ku leeyihiin marka golahan deegaanka la dooranaya dadkiibay wakiilla u yihiin dadkii ayay wakiilla u yihiin oy wakiilla uga yihiin danahoodii heer degaan lagu fulin karayey ee aynu soo sheegnay oo ay u raacayaan oo ay hadhow kula xisaabtamayaan oo hadday si fiican u qabtaanna ay doorashada dambe ku soo celinayaan loogu talagalay in lagu soo celiyo la xisaabtamo haddii aanay si fiican u qabanna ay doorashada dambe ku bedelayaan oo odhanayaan imaanu bogin sida howlaha iyagii deegaanka u fuliseene nafasaxa kuwa kale aan dooranayno waagaag waxaa ma jiraan shuruudo lagu xidhaa dadkan golaha deegaanka xubnahooda ka mid noqonaya haddiise ay jiraan ma u aragtaa golayaashan deegaanka imika jira in shuruudaha ay buuxiyeen kaalintii looga baahnaana ay fuliyeen shuruuduhu iyo barnaamijka fulintiisu had iyo jeer waa kala shaad waxa weeyaan dad badan oo shuruudaha fulinaya shuruudihii waxa weeyaan qofku waa inuu muwaadin noqdaa waa inuu reer Soomaaliland noqdaa waa inaan dambi culus lagu haysan waa inaan maxkamadii aanay xukun culus ku ridin Soomaad garan waa inuu loo gartaa dee inuu u qalmo shaqada marka shuruudaha guud ka sako waa in aad looga fiirsadaa baan qabaa anigu dadka xilka ummadda loo dhiibayo anigu waxaan jeclaan lahaa sidii tii hore aan soo sheegay in dadka aan soo doonan xilka ayaga lagala soo baxo oo la sahamiyo oo loo yeedho sidii markii hore aynu sheegaynay loo yeedho oo dadkaasi marka waxay noqonayaan dad aan ku danaysanayn ayay u badanayaan arrintii laakiin kuwan isa soo qadimaya ee leh aniga xilkiyaa lay dhiibay ayaga badankooda waynu soo sheegno waxa weeyaan kuwa dhibaato badanaa lagala kulmo marka shuruudaha waan ku darsan lahaa anigu waqti ay noo suurtoodaba haddii aan waxaan rajaynayaa inay noo suurtoodo in heerka aynu gaadhno laakiin imika marka waaqici la noqdo duruuftan aynu ku jirro waxaynu ku kala dooranaynaa dadka tacliintooda rekordkooda waayo araggooda CV-gooda ayaynu dalbanaynaa ilaa heer intaynu isle kuwa inoo yimaada aynu helno kuwaynu isleenay way ugu ladan yihiin ilaahummaa dadkiisa wada yaqaanee intaynu inaku garan karno aynu qiimaysan karno
ayaynu doonaynaa inaynu haddii aan la yidhaha deegaanka doorashooyinkooda soo sharax ururkiina imika ma idin diyaarba haddayse idin diyaar yihiin ma idinkunbaa soo xulay mise waa laydinla xulay maya ee runta haddaad doonayso badankooda dadku chanceba ku siin maayaane ayagaa ku soo rashgaraynayo ku imanaya oo madax dhaqameedyadiiba kuu keenaya oo inta waraaqood laynoo keenay waraaqaha naloo keenay malaynmaysid dalabka naloo keenay arjiyada naloo keenay malaynmaysid qaar shakhsiyaad baa keenaya maantadana ugu dambaysay qaar baa guriga igu yimi oo ii keenay raggii ay sharaxayeen golaha deegaanka soomaad garan salaadiinta qaar ku keenayaan qoqaashay qaar ku keenayaan ayagoo wada socday qaar ku keenayaan madax dhaqameedyada kale qaar ku keenayaan oo marka qaar baa ayagu naftooda soo qadimaya oo ana doonaya in lagu qoro halkaas marka waanu ururinaynaa weli maanu kala shaandhayn laakiin waxaanu doonaynaa markuu waqtigu soo dhawaado haddii aan la yidhaah in aanu kala dooranno oo aanu wixii tayadooda iyo ra'yigaanu ka qaadano tacliintooda iyo backgroundkooda iyo waxaas aanu ku kala dooranno haddii aan la yidhaah laba siyood baan u malaynayaa in loo eego waxaa dhici karta in ka badan in loo eego qofka maadaama cod aad doonaysaan ururadu inuu reer ka dhasha farale oo markaa codayntii u helo si aad ugu heshaan iyo qof aad og tahay inuu yahay qof deegaankaa laga soo doortay dantiisa wadaya midkeed idinku eegataan adisleediin u eega labada waan eegaynaa xagga sidaad sheegtay tirada lagama wada tegi karo oo dee wixii food baa dhacaya oo waxaad doonaysaa in ururkii uu tiro badanoo foota helo oo lagama wada tegi karo marka runta la sheego waaqicina la noqdo soomaad garan haddii aan taa sideeda loo sheegin dee been baa la sheegaya weyn soomaad garan marka taa waa lagu xisaabtamaya laakiin taasoo kale ku xisaabtamayne shaygan la yidhaha tayada ee ay arrinta kale shaqada cidda ka soo bixi karteed soo qaaday iyaduna way soo gelaysaa oo tayo hadday qoys noqoto iyo haddii ay gobol kasta noqoto tayo waa laga helaya qoys kasta dad wanaagsan waa laga helaya qoys wada xumi ma jiro qoys wada wanaagsanina ma jiro marka qoys kasta ama deegaan kasta waxaad ku dadaalaysaa waxaan ku dadaalayna haddii aan la yidhaha intooda wanaagsan iyo tayada leh inaanu ka soo qaadanno oo tiradiina aan ku qaadno oo aanu labadaba haddii aan la yidhaha isku beegno sagaal baa imika tartamaya saddex ka midii ay yihiin saddexda xisbi qarane imika taagan lixdan urura cusub markaad iga reebtid saddexdaa hore ma odorosi kartaa ama ma saadin kartaa guddoomiye yaa soo baxayaad isleedahay qaarbeed ka fikraysaad isleedahay jidka ahayaan way hadhi doonaan bal noo saadaal saddexda hore anigu waxaan isleeyahay horta dee waxa dhici doona dee ku wada dambaabmayna ilaahunbaa ogo qaybkiisa ma faragelin karo laakiin haddii aniga malahayga la weydiiyo mala uuna anigu wax ma ogi anigu waxaan isleeyahay laba way dhici doonaan midna haddii uu soo baxo dirqi buu soo bixi doonaa waan isleeyahay kala magacaabi maayas rajadiinnu idinku intay laagtay rajadeedu ma xuma oo dee laysma bido oo lama yidhaaho waxaasaan samayn doonaa taasi waxa weeyaan meesha kuma jirto munaasib maaha laakiin haddii aanu isleynay rajo marihidinna ismaanu kalifleynba oo waanu iska joognayn hayar baanu guryahayaga iska joognay markaa rajo macquula waanu qabnaa waxaanu isleenahay haddaa ilaahay la kaashataan idinkuna dadaashaan waxaanu isleenahay waxa suurtagala oo u dhowdahay in kuwa soo baxaya haddii alaydaa kama noqoto markii lagu jiray tartankii siyaasadeed ee madaxtinimada loogu gudbayey ee saddexda xisbi qaranberiga ugu jireen ayaan guddoomiyaashooda aan waraystay waraysi sidan oo kale aan la yeeshay waxaanan weydiiyey mid kasta markaa daahir rayaale ayaa madaxweynaha waxaanan weydiiyey haddii lagu doorto axsaabta siyaasiga ama furas madaxweynaha hadda his excellency axmed maxamed maxamuud siiraanyo ayaa wuxuu yidhi si isagu aan jeesi lahayn waanu furna uu ka dhabeeyey adiga ka guddoomiye ahaan siyaasi ahaan aqoon-yahan ahaan waaye arag ahaan xasan aanu isaan ku aqaano ma waxaa kula qurxoon in waa 10 sano oo keliya in 10kii sanaba mar la furo mise in loo kaadiyo oo waxaan bal kuwana waqtigu day waxa bare su-aasha dhinac marka laga eego si dadba baan uga jawaabay su-aashaasoo waxaan kaga jawaabay markii aan idhi qodobada seegay xukuumaddan iyo kuwii ka horreeyeyba annagu haddii aan la idhaayo janska helo aanu kaga duwanaanayno waxaa ka mid a in xisbiyadan tartamaya la yara hakiyo
والله كيو الله يراها وريادين dhageysta marxalad adag bay ku jiraa gaarigii dawladnimo ee ummadu dhiiri weyn naga galay si aynu dhiiriga uga saaro waa inaan dhinac wada jeedsana waa in muxaafad iyo mucaarad la isugu yimaado xisbiyada dhan waa in isugu yimaado ururada haday jiraan way isugu yimaadaan oo dhinac wada jeetaan dabeerto aynaan ummadda khalkhal gelin markaynu dhiiriga ka saaro ummadda aynu ixtiraafkii ummadan hadii alla yiraahdo ay u baahnayd aynu ku guuleysano ee aynu asaaskii siyaasadda dhigno markaas hadii la doonayo xisbi aynu kala baxno aynu faakaysano oo aynu dabeeto doorashooyin waxaas kubadda ku dhaxyaara ummadda oo ayna kala taageerto marka anigu waxaan aaminsanahay marka hore dalku marxaladan uu marayo sida looga bixi karaa inay tahay muxaafid iyo mucaarad in hawsha la isugu tago oo lagu midoobo oo waanigii demitaal soo qaadanaya Greegan iyo Talyaanigan marxaladan dayar uu ku cuslaaday baa ku cuslaaday ayagoo kamid ah wadamada ugu hodansan adduunka maanta kamid ah wadamada ugu horumarsan kamid ayaa haddana waxoogaa dayn ku cuslaaday say u bixinayeen waxay dhahan siyaasadda xisbiyada inoo yara kaadiyo aanu dhinac wada jeedsano anu taas soo jeedinaya taasna macnaheedu markaynu inta haday inoo suurto gasho aynu hadii la yiraahdo gaariga dhiiri ka saaray itiraaf wadanka aynu helno markaas kadib ayaa ay ummaddu isweydiin doontaa talada ummaddan hor dhigayna inaan oranaynaa distoorka waxa badan laga bedelo ayaan hore soo jeediyay soo gali doontaa marka la leeyahay distoorka laga bedelo taladii qaranka ayaa cid baa loo xilsaaraya aqoonyahankii sheekhdii dadkii way arag ahaa loo xilsaaraya sidii ay ugu bedeleen nafsaan dabeeto halkaas ka soo bixi doontaa hadii la yiraahdo Chinese-kaas ay ku gudan doonaa insha Allah in 10 sano mar la bedeliyeen iyo sidoo lagu wado waxa bilaamay dhawaan wada hadallo Soomaaliland iyo Soomaaliya xukunkan maanta jira Siraayo uu ka madaxweynaha yahayna ay bilaabeen ka xasan ahaan ka Soomaaliland ahaan ma raacsan tahay uma ku ayidsan tahay mise wad ku khilaafsan kuma ayidsaniyo kaliya aniga ugu horeeyay cid ku talisa in اعترافka Soomaaliland laga raadiyo shir kasta oo dibadda lagu qabanayo oo arrimaha Soomaaliland lagu soo qaado waxaan ku tari 14 sanadood ka hor maxamed xaaji ibraahim oo talada haya ayaan ku tariyay khayriyadan ay ahayd waana on record jaraa'idka iyo way ku soo baxday cajaladihii iyo wixii dhan la haya waana taariikh cadaan waxaan ka soo gaarsiiyay waqtiga waa shirka tagimeen shirka lama tagi jirin oo ka waraysa kan London baa ugu horeeyay shir ay dadkeenu tagaan dawladdeenu ay tagto oo arrimaha Soomaaliland lagu soo qaado dibadda ka dhacay war sidii goonta oo iyo tagimeen iyo una odhanine shirka tagimeen iyo shirka iyo waxaasuna gurina sidii goonta fadhiga ka kaco ummadda u foof taga oo اعترافkii wuxuu ku xidhan yahay shirkaas la tagayay ummadda qanciya adduunka oo wax gashada adduunka oo meel kasto danaha hadii aan tagin Sheekh Shariif oo kala tagay ama Cabdulaahi Yuusuf ka horeeyay ama kuwii ka horeeyay oo oranaya annaka Soomaaliya oo dhan matala kuwaasi way naga goosteen oo waxba اعترافنا oo hog bay ku ridayaan laakiin waa inaad meesha tagtaa talo waa hog lagu rido waa kan waaba noolahay go'aan baan gaaray ummadayda waa go'aan ka gaaray اعتراف xaq u leeyahay waa kan sabahan xaq u leeyahay ad ummadii qancisa waxaan ka soo gaarsiiyay waaga shirarka arrimaha Soomaaliland lagu soo qaadayo kaliya maaha shirarka aan lagu soo qaadayn arrimaha Soomaaliland taga ee aynu u baahanay dadka jooga inaynu wax ka shaqeyno Mareykan Japan Yurub wadamada dawladaha xoogga waaweyn adduunka Carabta taga shirarka aan lagu soo qaaday dayaxaya cadceedaha iyo xidigaha meelaha laga hadlayo waxay dhawa kuwa Soomaaliyeed u diray taga wax jira waa naga daayo kuwaasoo dhulkii aynu taagnayn ayaa xuquuqdeeda aan ku laanahay dhulka wax naga siiyo oo اعترافkayga nooga xaqsoona ayaa ka soo gaarsiiyay 14 sanadood kahor waan la daba taagnaa dawladii maxamed xaaji ibraahim tii ina riyaale tan waan kula taliyay ragii koobaad ee tan kula taliyaan ahaa ee jaraa'idkana ku soo qoray idaacadana ka sheegay shirka London in la tago in waagaas hore ee arinta soo qaadayna waan tilmaamay maan oran shirka la tago waan tilmaamay waxaan ku yiri اعترافku wuxuu ka bilaabmaa xamar sababta uga bilaabayana waxa weeye adduun weynuhu wuu leeyahay waxyaabo badan oo leenu adduun weynuhu leeyahay ma itribu leeyahay Soomaaliya soo matala ma itri ويتربلي أدونك وحكي أرانا يا اعتراف بات رادينيسا قوليهان حمرية كلا بحثين إلا دوانو كلا بحثين وحما يستراهين ميلو أرنتي ما وضع نكتين هدي جوابتو هان نقطة أو أي ليسكو أفكرتو سيدي إتوبيا إريتريا كلا أي نقونيسا أدونك هذا احتراف يا أدونك وضع هولي رئيس هاوشي أرنتي وضع هولي رئيس لبضا يدي أرنتو قسيسي باكو يشيني تأدونك روحونا يدي أنكو نايد إذن لا قادرني وابا سيدا سوية والسودان هي كونفرت السودان وكلا إريتريا إتوبيا وكلا ودمو بدنو عين كاسا جيرا adduunku wuxuu ku oranayaa ma itiri qoliyahan geeri isugu kin jiray geeri kala soo baxdeen wax ma ku heshiiseen adduunku saas uu ku oranayaa sababta ay xamar uga bilaabantaa itraaflaantu waa taa
waa rin adduunkuna yaqaano innakana inaga doonayo 14 sanadood baan saas u tilmaamay oo war ixtiraafka meel kasta u taga shir kasta u taga halkaasna ku horeeya Soomaad garan tanad sidii bay yeeshay laakiin tani waxay xamar ogolaatay in wada hadal la yeesho in London inay tagaan waxay ogolaatay oo nasiib darradu ay ku jirtaa taladii aanu soo jeedinaynaan anigu gaar ahaan soo jeedinay 14 sanadood may qaadan ee qolooyin Faransiya u yimi oo dhagta ku saaray kuwii Faransiga haba taladii anigu aan soo jeedinay ay ka qaateen adigii dhag ku dhigi maayaan laakiin in cadaan wuxuu ku yiraaho way qaadanayaan dhibaatada yar ku jirta arrimaha taas ka mid ah way muddo intee leeg badamka Soomaaliland ku sugnayd xasan Soomaaliland waxaan ku sugnaa dawaaga hore ee wax baranayay waxaan ka sako intan dambe si aad baro horta intaanu meesha qabsan baa ka baxay wadanka awku si aad baro intaanu qabsan ayaa ka baxay dhicitaankiisina waan soo galay intaas oo dhan waan ka maqnaa waxaan oran jiray si aad baro hawo uu madaxweyne ka yahay xukuumo anigu wargay ma neefsan baan oran jiray wariyaha jabad waxa oran jiray hadda maxaad ku haysataa ninkiisa yaab waxaan jeeshay sheekadiisa ka xaraaq marka ilaa aynu dalka soo galay anigu halkan u banaha aan aaminay waxa ilaaha diinka la ilaaha dhashiisa ay ku koriyaa daymada intii maamulka aan wareejiyayna kuma raagina markay dalka soo galnay sheekada wad haysaaye kama bixina halkan u baan aaminay aniga iyo qoyskayga iyo carruurtayda oo aan ku kalsoonaa in uu hagaagi doono hadii la ilaaha oo aan ku tala jiray Allah diinku haduu daymada ku kordhiyo dhashiisa adigu xasano daymada kaga baxayri dadkaaga iyo dalkaaga aniguna ku eeganay qoyskaagu ma dal joog baa soo dibad joog waa dal joog qoyskayga waa dal joog halkan jay ayarka guriga aad ku jirtid ee degantahay adiga alam soo kiro ijaar guriga aan ku jira imika aniga alaho dawladda lahaan jirtay laakiin dhul la ii qoray oo xogaa ahaa ayaan dawladda ka dalbaday waqtigii in reeyaalo oo madaxweynaha fariimaan u diray waxaan dhulkaas waan ka rabaa sharcigiisa aan la ii qoray wuxuu markaa dhul hagaagsan oo imika aan ii diyaar ma jiray xasanow u qaado dhulka gurigaan ku jirto way soo qoray waqada anoon ka dalban buu soo qoray taas oo ra'yigaasi aniga igama iman xaqiisu ka yimi markaa daato processkii kalena way martay arrintu way ugu soo wareegay guriga marka guriga leedahay aan kula kaltama xasan weligaa ma lagu xidhay ma xusuusto xaasha dambi lagu xidho ilaahay inuu gelin انت ما حسوسته كل دمبي محكمه oo maxkamada ay soo joojiyay lagu xidhay xukuumo lagu xidhayna ma jiro taas de waa cadaan weyn ognahay si kale oo la xidhayna ma jirto mudaharaadada ay ku sheegay Ingiriiska jaamacadda markii aan ku jiray inuu gari jiray marmar Ingiriiska way sigeeno mar abaan ku hoos ku fardaha waaweyn ay leeyihiin aad ka warayso mudaharaadada ku ilaaliyaan oo Ingiriiska qaba gaadhay laakiin markaas waa ka yara siibtay laakiin xaggan wadan kale lagu qaban oo lagu xidhin marna dalka darisku dabcan waa in la bartaa waliba marka siyaasadda madaxweynaha Itoobiya magaciisa ma taqaan madaxweynaha Itoobiya horta magaciisu ma sahlana illa bartaa Soomaad kana sababta oo asawtuna wax meel Soomaaliya la yaqaan oo ra'iisul wasaaraha xukunka Itoobiya ayaa powerka ayaa waxa hayay ra'iisul wasaaraha madaxweynuhu waxa weeyaan shaygan la yiraahdo ceremonial oo awood badan ayaan lahayn sida boqorada Ingiriiska oo kale oo meelaha la furayay xadga laga gooynayo waxaas laakiin madaxweynaha imika waxa filayaa inuu yahay walda Georgis baan filayaa Georgis labada siyood waa loo akhriyaa Soomaaliya waa akhriyaa baan filayaa oo akhriyaan magaciisa hore waxa filayaa inuu girma yahay dalka Soomaaliland la dariska waxa kamid ah Djibouti muddadii uu xukunka hayay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geeli dabcan ra'iisul wasaare yaal ayuu magacaabay ra'iisul wasaaraha imika jira ma taqaan magaciisa ra'iisul wasaaraha imika jira waxa filayaa inuu yahay Dilayta Maxamed Dilayta lamaan kulmin labada midna kana lamaan kulmin adi weydiisay madaxweynaha Itoobiya lamaan kulmin oo inta siyaasadda deegan ay soo baxeen waanigii nasashada kaga jiray laakiin kii ka horeeyay ayaa la kulmay barxad guuraad ayaa la kulmay oo London mar ugu soo maray ayaanu yara sheekaysanoo kulkaas ay BBC barnaamijka ka duubaynay ayaan ku xasuustaa hadal uu nagu yiri nin Jacfar oo ahaayo af Soomaaliya laakiin si fiican u yaqaan laakiin marmar ku yara marganay ayuu ahaayo mahmaah Soomaaliya isiri soo qaado kulkaas yiri Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa nin daad qaaday cusbo ku subkay ayuu taas ka xasuustaa barxad guuraad warun Allah ma xariisto runtii wuxuu ahaa nin
aad moogti hadalladiisa dalkan Somaliland 26 Juun 1960 xornimada qaatay barasaabkii Britishka ee halkan markaa ka talinaya calanka ku wareeji ma xasuusataa magaciisa ma garanaysaa adigu waaga ma baad dhalan baan u malaynaya laakiin adigu aad baan u da'yaraayo markaas aad magacyadooda dee waqtiga maan kala aqoon laakiin taariikhda markii dambe yara eegay waxaan filayaa in magaciisa la oran jiray Sykes Thompson in la oran jiray umalaya laakiin ma hubo Rees ninkii la oran jiray wuu soo maray laba sacrimada Soomaalidu oran jirtay kuwa ahaa ma sii hubo wuu soo maray kan waxaan filayaa kii ugu dambeeyay inuu Sykes Thompson ahaayo iskuulkan Axmed Gurey la yiraahdo ayaa magaciisa la siiyo waqtiyada la furay oo la oran jiray barisaabada loogu magac daray jiray Rees iskuulkii la qoray barisaabadii hore ka mid ahaa Rees la oran jiray inuu Sykes Thompson haa filay laakiin ma hubo inuu waxay cilmiga asalba ayuu waad la socotaa nin tacliimaad tahay cilmiga asalba qofka lagama rabo inuu wax kasta yaqaano qofka lagama rabo inuu iska dhigo inuu wax kasta yaqaanana ma aha oo de waa lagu garanayaa qofka wax kasta yaqaano ma jiro laakiin qofka cilmiga leh waxa laga rabaa inuu yaqaano waxa markaa ka maqan meeshuu ka helayo waxa ka maqan ee uu garanayn markaa qof aan wax ka maqanayn ma jiro qof aan wax garanayn ma jiro qofka mutacallimka ee tacliinta leh cilmiga waxa sifadu kaga duwan yahay jaahilka ah waxa weeye uu qiranaya horta waxa inaanu garanayn waxa markaa ka maqan number 1 oo dadka ma qabo inuu cilmiga oo dhan aan wadahayn talabaad qofka cilmiga leh waa inuu gartaa meeshuu ka raadinayo su'aasha ka maqan ee jawaabteeda ka helay Soomaad garan marka waynu wada garan karaynaa meesha inuu ka heli karayno jawaabta su'aashan haday doonayno hubsan laakiin ka haba filan waqtiga aad firaaqada leedahay hawl culus aan gacanta ku hayn maxad waqtiga isku dhaafsa waxaan isku dhaafay waqtiga badanaa waxa weeye wax akhrisaan xiiseeyo tacliinta iyo ciyaadada iyo cilmiga guud ahaan ayaan waxba akhrisaan u badanay sidaadana marba siyaasada yara jimcsee thank you and hadda 2012 baynu joognaa Allah ina gaarsiiyay 2022 tobanka sano soo socda halkeed filasa Ilaahay baa ogay laakiin adigu aragtidaada mustaqbalka Soomaaliland tobanka sano soo socda sidaa sheegtay waad ku hagaagsantahay qaybka Ilaahay baa leh waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inuu ina gaarsiiyo kaliya ma inuu caafimaad iyo guul inagu gaarsiiyo ayuu rajaynaynaa oo waqtigaas oo kale aynu sidan oo kale isu wareysan karno wayaan ayuu rajaynaynaa insha Allah taala waxa kaalin kasta oo aynu kaga jiro Soomaaliland horta Soomaaliland in aynu haduu Ilaahay ina gaarsiiyo caafimaad inagu gaarsiiyo waxaan rajaynaynaa Soomaaliland inaynu sidaynu aaminsannahay ayaan rajaynaynaa waxaanaynu rajaynayaa Ilaahay ka baryaya in qoliyaha i'tiraafka gaarsiiyay Soomaaliland waqtigaas ka hor ee ay u ayday ee nidaam dawladeed oo u xaq soora Soomaaliland cadaalad arrimaheeda ugu dhiso oo ay daahay naga dambeeyaa ay ka amba qaadaan oo lagu qarsanayo sees caqiido la u dajiyo inuu Ilaahay naga dhigo rajaynaynaa kuna tala jirnaa kuna shaqaynayna hadii Allah